Safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar ayaa munaasabad u qabatay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka mid ah xiriirka kubadda cagta ee lagu magacaabo Somali Mini Football qaybtooda ka dhisan dalka Qatar, kuwaasi oo ciyaaro ugu soo gabagaboobeen magaalada Doha ee dalka Qatar. waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba jaaliyadda Soomaalida. Mukhtaar Cali Yuusuf, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar oo kulanka furay, ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo is-abaabulay isla markaana hormuud u yihiin ciyaaraha lagu qabto dalka Qatar, wuxuuna uga mahad celiyay dadaalka ay muujiyeen. waxaan mahad weyn idinku celinayaa wanaagii aad muujiseen iyo dadaalkii faraha badnaa ee jaaliyaddu ay u soo gashay xiriirka kubadda ay u soo galeen horumarinta iyo juhdiga faraha badan ee aan waqti badan aan lahayn, oo aan aad runtii aan ugu ammaanayo walaalkii Cabdirashiid oo ah guddoomiyaha jaaliyadda u qaabilsan dhanka kubadda cagta. Liibaan Maxamed Cabdi oo xiriirka kubadda cagta ee Somali Mini Football u qaabilsan qaaradda Aasiya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha u qorshaysan, isagoo sheegay inay doonayaan in la helo xul qaran oo dhinaca kubadda cagta oo Soomaaliya ay yeelato. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga Somali Mini Football Cabdi Maxamed Xaaq ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyay World Mini Football oo dowladda Soomaaliya ay sanad ka hor ku biirtay iyo ciyaaro dhowaan ay ka qaybgeli doonaan, wuxuuna xusay in xilligan ay ka howlgalaan gobollada Soomaaliya iyo waliba dalalka caalamka ee Soomaalidu ay ku nooshahay. Soomaaliya hore uma dhicin miin maqal dadka waaweyn waa og yihiinba in ay qualified u soo baxaan koob adduun, maadaama xiriirka xiriir cusub uu yahay. dowladdii ugu fiicneed ee Afrika active ka ahaydna annaga aan noqonnay, waxa aan go'aansanay maamulkeena in baasha aan ka soo bixino gudaha Soomaalida iyo dibadda joogtana ay ka qayb galaan, ay ciyaaraan tayadooda iyo awoodooda ay la yimaadaan koobka adduunka oo lagu qaban doono 2017. ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xidhay safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Qatar, Cumar Idris, wuxuuna sheegay in ciyaartoyda jaaliyadda Soomaalidu ay ku horeeyaan ciyaaraha kubadda cagta isla markaasina ay soo qaadeen koobab kala duwan, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed u jeediyay in qof kasta uu isku xilqaamo wax u qabashada dalkiisa. runtii markaan fiirno jaaliyadda Soomaaliyeed ee Doha ku nool, inkastoo aan ka midnahay jaaliyadaha yararka laakiin markii la yiraahdo xagga dhaqdhaqaaqa iyo ciyaarta iyo footballka markii la yiraahdo aad iyo aad baan ugu horeynaa. koobab badan baa jiro aan soo qaadnay, qaarkood xafiiskayga yaaliin. koobab badan maarka sharaf bayna jaaliyadda iyo safaarad ahaan baan anagoo dhan baan noo tahay. nin walba oo Soomaali wuxuu matalaya ummadiisu matalaya. marka koowaad jaaliyadda halkan joogta, marka qof Soomaali guuleysta waxaa la leeyahay maar wallahi qofka Soomaali ah jaaliyadda baa magac u soo jiidaya. marka kale guud ahaan ummadiisa Soomaaliyeed qaaradaha dhan meel kasta ay joogaan buu magac u soo jiidaya. isxilqaanka qofka hadduu sugo dowlad ummadaha waxa weeye intay dadka individualka ama afraadda intay dhisaan ama magac u soo jiidaan yaa ka badan intay dowlad ay qabato. waxaa dhigata hal qof inuu ummad dhan magaceeda maartay uu sharaf u soo jiido dhan kastay noqotaba. ummaddana wax la yidhaaho qof la yidhaaho Soomaali la yidhaaho ase keligii la yidhaaho qofkana Soomaaliya ma jiro. Soomaalida la sheegi waa aniga iyo adiga iyo kulli intaana la isku daray way. taas haddii aan ka soo qaadno Soomaaliya inay tahay gurigan meeqa element baa ku jiro. nalkan baa qurxinaya dhaalnay ku jiro, safiitooyin baa ku jiro, daahad baa yaa ku yaalo, dhagaxyaa jiro, biraa jiro. marka ummadda qof kasta dadka afraadda waxay matalayaan dhismahaas unugyada uu ka kooban yahay kale marka ay matalayaan. marka hadda adigu wax isxilqaantid aan isxilqaano oo isku day inaan maantiir noqdo ama dhagax noqdo ama bir noqdo guriga ku jirto, guriga qurux banaana wuu dhismayaa. Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Doha.